بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد إن شاء الله ما أنت إن شاء الله تعالى شركة نشرة وحكو سابسية ما أنت إنه كذا هذا الله فكر أهان يا قور أهان با وذا هذا لذن أما هشيس كان أي وذا جلنا سومالا يا خاتمه رنتي أنا جو أهين وقت جاء أنا ورد أهين نيكي وجوه الرئي أما أوركي وجوه الرئي الصوت شديا إن لا لقلا والله فرا خاتمه وذا هذا الحمد لله رب العالمين ما أنت واحد قاعد هشيس ما لو بيرجع ودنا واحد من الحين هلا الله فرا وذا هذا إلهي بام هذا وحلي مركو هرير خاتمه وين سود ويننا بروفيسور كإياه عيد الله سعته يدمان هير كودا يدمان قبل هذا يكسر شدام بواحد لو سود ويننا والكم قعمة فرا وودن كيني دل كيني هشيس كان واحد إلهي كبرينا وبر رمضان إنه كيمرد على عدد كذا كأفعاء ونقضبان إلهي كبرينا أنت سوى سود وينتي هشيس كا وعن سلاي هاي أن نيكل أورنج لي فارح قالوا لي أيا داتي شرد مركي حمر وكذي سوى وحكويل ولا حبادي من بود أنا وحن لا هي لبغى الحوض بعد من لبغى والحوض مدوي يعني واتي أنت بدنا إنه ولا لين هو إنت ستور كلا فرو تاسو أيجنا أي صوت وينيان حق ودنا كوه ليان كنا ترتمي كليان كنا نقولنا يا أنا كوا كتر تمام مركا إن شاء الله تعالى مستقبل كودن كأي دور شدن بدح ويني صوص عته وعن لا يهلا فرو دستورك وأنا كوا أتكيننا هرنا أول الله إن بدن أيان وجود شرني قيبنا ويك قادنا يسا أيجنا سي حق وده وهلان تاوان كوا أتكيني وعن لا يهاي ولحظة دمن يهلا فرو دستورك ولحظة الله بعد وعن لا يهاي سومالي ده وحو عادة أما دقنوه إن مركي هلان أما أي قان قارن أما هشيس أي قارن إني نقضو هذه الشير هذا الكا أنا وانو مردلين هذه الشير أما هشيس كا أي قارن أما فكر كا يا وحيابا يثلين قبته أنا نقولين مد قان قارن أما أي مردله ونقضو هذه الشير وأنا تنكديه ونقضو سيدي دتك مرقانسن وحيابا دقن كسومالي ده نوبدن دتك مرقانسني guri bay dhisaan markuu muqaamku ka baxana uu dumaa waa tan ka digaya heshiiska waxaan leeyahay hal adkeeyo wixii lagu kordhin karana ha lagu kordhiyo yaanu noqonin heshiiskaasi sidii dadkii murqaansanaa yaanu noqonin oo kale waxaan kala doonayaa inaan ku daro ayadana goorma ayaa waxaan la isla soo qaaday ama heshiiskan la gaaray ama wanaaggan la arkayo in la gaarayo goorma ayuu noqonayaa mid madhala ama se la gaaraya ama uu run noqonaya Soomaalidu waxay ku mahmaada waana sheegaysaa waana shareeraysaa wuxuu noqonayaa marka la helo qof diin leh oo daacada oo dadnimo leh oo dalka iyo dadku way u siman yihiin oo u garsoor iyo cadaalad simaya marka la helo ayaa waxa lagu riyoonayo oo dhama ay rumoobayaan weeyaan laakiin hadda Soomaalidu sida ay u badan tahay ama dadkeenu sida ay u badan yihiin isagoo qofkiiba seexanin uu yiraahdo waan riyoonaya sidee bay suurtagal u tahay qof soo jeedo oo fadhiya oo la waan riyoonaya sidee suurtagal u noqonaysa horta seexo riyadaada markaas la aqbalaya markaas aad riyoonaysa waxa leeyahay horta wax qabta oo Soomaalidu ha fahanto halkay boogtu kaga taal ma aha nabarka dushiisa in la dhayo maaha waa in gudaha in laga soo dhayo weeyaan oo la soo bogsiyo marka waxaan leeyahay aan ku soo koobaya hadalka ma badinayo insha Allah taala marar badan baan ka sii hadli doonaa waxaan leeyahay oo aan ku talinayaa inaynu maanta u baahannahay maanta inaynu halkan ka dhaqaaqno wada hadalka iyo heshiiskaasi uu rumoobo mid qaangaar oo ummadda iyo dadkan anfaca uu noqdo inagu aynu noqono kuwa hadhow yani ilaahay ugu mahadnaqa oo ku xisaabtama hadhow oo mar qura un la arko yani himaladeena iyo riyooyinkeena oo rumoobo in mar qura un la arko ayaan ku talinayaa insha Allah taala wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh